waxaan taaganahay fikta ugu sareysa ee buurta Calmadow halkaas oo kamid ah meelaha ugu quruxda badan ee Soomaaliya halkan maanta waxaan u imid inaan ka shaqeysto waxaan rabaa meeshan inaan ka laabto aniga oo haysta ama ku tashanay inay soo bixi doonto lacag aad u fara badan hadaba sidee isu waxaan qaaday sawiro kuwaas oo aan rabo inaan lacagta aan ku sheegayo oo faraha badan ayaga ka sameeyo waxa laga yaabaa inaad is weydiinayso sidee lacag uga shaqeynaysaa sawiraha qaaday sababtoo ah ma jiro qof aan sawir ka qaaday oo lacag ku siinaya sida ogsoonahay dadka kaamirada ku shaqeeya waxa ay sawir ka qaadaan dadka dabeedna bedelkeeda waxa ay qaataan lacag laakiin ma ogtahay adigoo intaas oo dhan sameeynin inaad heli karto lacag taas ka fara badan shalay daraad iyo maalmihii ka sii horeeyay waxaan arkaynay sawiraha aad u qurux badan oo lagu soo baahinayo barta Facebook iyo Instagram kuwaas oo laga soo qaaday buurtan hadda aad taaganahay Calmadow sawiradan waxa soo qaaday wariye kamid ah wariyaasha Soomaaliyeed magaciisa waxa la yiraahdaa Maxamed Xasan Dhalo wariyahani badi waxa uu diiradda saaraa magaalooyinka iyo sida dadka ay u nool yihiin waan run ahaantii mowduuc ka duwan mowduucyada aan uga baranay wariyaasha kuwaas oo ah inay noo soo tabiyaan dagaalada iyo sidoo kale meelaha colaaduhu ka jiraan laakiin wariyahan iyo sidoo kale wariyaal kale oo aan hadda inta ku xusi karinin waxa caadiyan ah barnaamijyada inay yihiin barnaamijyo ku qatoma nolosha bini'aadamka caadiga ah si gooni ayaan ugu hambaleynayaa waan ku salaamayaa saaxiib sida aan ogsoonahay Soomaali ahaan way nagu cusub tahay isticmaalka social media ama barta internetka loo yaqaano in lacag laga sameeyana waxayba noo ahayd muddo dhow oo waliba xataa qaarkeen maba aaminsana in lacag laga sameeyo waliba lacag aad u fara badan intaas waxay ogsoon yihiin kaliya in laga sameeyo aalada Facebook iyo sidoo kale YouTube-ka qaar xataa wali ma ogeyn in Facebook lacag laga sameeyo waxa soo dhan ka soo gudub waxaan rabaa muhiimadda aan u socdo ee barnaamijkeena ku sheego taasoo aan isleeyahay in aaduna wax ka faa'iidi doonto meeshan ay ka tirtiri doonto anigu waxaan ahay shaqo la'aan adigoo dalkaaga biliciisa iyo quruxdiisa soo gudbinaya ayaa waxaan rajeynayaa inaad wax badan ka faa'iidi doonto waxa ku sheegaya laba qaab oo si sahlan lacag uga sameyn karto waxa laga yaabaa mid kamid ah inay u baahan tahay maalgelin laakiin midaan kale waxay u baahan tahay kaliya inaad ogaato baartana meelaha aad ka heli karto tan koowaad waxay tahay sawirka waxa laga sameeyaa lacag waliba laba qaab waxa uu yahay inaad internetka ku iibiso oo sawirkii aad soo qaaday ee quruxda badnaa kana turjumay bilicda iyo deegaan qurxinta aad gadid oo internetka ku iibisay waliba adiga oo laba qaab maraya qaabka koowaad waxay tahay inaad ugu samaysato website gooni ah kaas oo dadku ay soo booqdaan kadibna ay ka gataan baahintiisa iyo in dadku bartaan waxa laga yaabaa inay waqti ka qaato oo taas caqabad kugu noqoto laakiin haddii ay ku suurta gasho waxaad ogaan doontaa inaad noqon doonto qof guuleystay oo lacag badan sameeyo waliba tan xigta waxa ay tahay in sawirkii aad gadatid oo aad ka gadatid qolooyin website yale oo shirkadaas aad la xiriirtid dabeedna aad u sheegto xirfadda aad leedahay sambalada iyo sawirada aad qaadid aad tustid sidaasna aad deal kula gashid oo sawirkii aad soo qaadidba ayaga u dirtid dabeedna bedelkeeda ay ku siiyaan lacag billah ama sawir la ah midii aad doontaba mid kale ayaa jirta laakiin aan badiba hubanti ahayn taasoo ah in sawirkaaga aad meel ku upload gareyso ama website public aad ku upload gareyso qofkii ka helana uu gato laakiin taas boqolkiiba boqol maaha labadan hab oo kale waa se laba hab oo la isku hubo ka soo gudubtaa tan kale waxa laga yaabaa in kaaga baahan tahay wax yar oo maalgelina laakiin haddii aad ku guuleysato waxa ganacsigaadu gaari karaa daafaha caalamka oo dhan aan tusaale yar ku siiyo marka aad tagtid xafiisyada dowladda kuwa ganacsatada iyo sidoo kale kuwa shirkadaha ama isbitaalada darbiyada waxa ku dhagan faraamiyo noocan oo kale kuwaas oo alaaxaba laga soo bixiyay lacag ku dhow $100 haddii aysan ka badnayn soo fiiri tag suuqyada lagu gado xabad kasta oo kamid ah ama set kasta oo kamid ah waxa uu joogaa 120 150 iyo ka sii badan waliba marka laga yimaado faraamka iyo dhalada ay ku jiraan halkaas waxa ku jiro sawiradaas oo laga soo qaaday buuraha ku yaala Aasiya Yurub America iyo sidoo kale taalooyinka iyo meelaha caanka ee wadamadaas ku yihiin waxaana arkaysaa inay ku sawiran yihiin xafiisyada dadka Soomaalidu ay leeyihiin haddaba maxaa ka quseeya waa waxba waxay leeyihiin bedelka in loo soo sawiro webiga Jubba Shabeelle buurta Daalo buurta Calmadow isha Baydhabo xeebta Marka tan Kismaayo tan Boosaaso tan Muqdisho magaalooyinka qadiimiga ah sida meelihii sayidku joogi jiro kaleeto sawiradaas oo kaleeto oo inta loo soo sawiro frame loo soo geliyo qof kasta uu gadan lahaa waxaan laga yaabaa qiimahan inuu uga hooseyn lahaa marka adiga intaas waxay kaaga baahan tahay inaad sameyso maalgelin oo aad soo gadato faraamyadaas dalka hadda lagu ma sameeyo dabcan laakiin waa la soo iibsadaa haddii aad soo iibsatid bala sawiradaasna aad dhaxgelisid waxaan hubaa inaad ka sameey doonto macaash badan waxaa jira fursado badan oo dalka ka banaan oo dhalinyaradu lacag ka sameey karaan laakiin nasiib xumadan haysta waxa ay tahay qof kasto anaga naga mid wuxuu rabaa inuu xafiis fariisto taay xirto suud xirto manager noqdo xafiiskiisaas oo maamulo kadibna asagu shaqaaluhu hoos yimaadaan waa ta dhibkana haysata inaad intaas sameyso qofna u shaqeyso waxa ka wanaagsan inaad noqoto xirfadle wixiisa soo saarta barnaamijkeena xalka ganacsiga intaas ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijkan toddobaadkiiba 2 mar ama 3 mar sidii jaanis loo helo ayuu ka baxaa page-kan ugu dambeyn waxaan rabaa in halkan ka salaamo kuna dhiirigeliyo wariyaha dhaafay ee Maxamed Xasan Dhalo sida quruxda badan ee aad
bilicda dalka nagu soo gudbinayso waana wax mudan in lagu bogaadiyo sababtoo aan nasiib daradan haysta waxay tahay marka aad qorto Soomaaliya fiiri laba qaab u kala qor Soomaaliya qor qaab Ingiriis ahaan u qor waxa ku soo baxaya dagaalo dad qoryo wata burcadbadeed iyo waxyaalo aad kaaga naxdin gelinaya laakiin marka aad Soomaaliya qorto oo caadi ah Soomaaliya waxaad arki doontaa bilicda dalka sababtuna waxay tahay dhalinyarada ayaa qaabkaas u soo geliya Google-ka isku daya in xataa luqad qalaad ah ku soo gelisaan marka wax soo post gareynayso si caalamka oo dhan uu u gaaro dalkaaga quruxdiisa iyo waxa ka jira adiga ayaa ka warbixin kara ogow ninka ajnabiga ee kaamirada wata ee imaan doona waxa la socda nin qandaraas soo qaatay kaasoo raba inuu soo tuso meelaha dadka dhibaataysan oo kaliya joogan halkaas ayuu sawir ka soo qaadan doonaa kadibna wuxuu baahin doonaa dadkaas dhibaataysan oo kaliya laakiin adiga booskaaga ayaa banaan kaasoo ah inaad gudbiso bilicda deegaanka wariye Maxamed Xasan Dhalo waa kuugu hambalyeynaya runtii waan kuugu bogaadinayaa sida quruxda badan ee markaas nagu soo gudbiso bilicda dalkeena wax badanna shakhsiyan waan ka faa'iiday meesha aan ku amaan lahaa marka aad dhimato oo na dhigi lahaa wuxuu ahaa wariye Ruug Cadaaya oo wax badan dalkaan quruxdiisa soo bandhigay hadda ayaan ku horumarinaya waan sida loo baahan yahay qof kasta oo hal door ah in maanta uu nool yahay wixii uu leeyahay amaalmarin la siiyo amaan iyo sidoo kale bogaadin intuu leeyahayna loo horumariyo meesha aan amaani lahayn maanta oo dhinto si gooni aniga hadda waxaan ku leeyahay waxa tahay wariye Ruug Cadaaya dalkan iyo dadkan ayaan ku baahan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh